waxaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay ku sugnaa wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga Uxid Mujaahid Cali Gurey iyo sidoo kale xiriiriyaha gobolada Awdal iyo Salal iyagoona isla maanta ka hadlay arrimaha baahsan ee ka jira degmada Saylac iyo baahiyaha kala duwan ee ku hareersan degmada Saylac ee arrimaha bulshada ugu horeyntina waxa halkaasi ka hadlay xiriiriyaha gobolada Awdal iyo Salal isagoo arrimahaas ka hadlayna waxa uu yiri waxaan ku soo dhaweeyay hogaankii guud ee xisbiga cadaaladda daryeelka oo hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mudane Cali Maxamed Ismaaciil Gurey anagoo soconna hawshii diiwaangelinta codbixinta ka dhacay ku saabsan xukun qarqooshka ay wado wasaaradda maaliyadda waxaan leenahay ninka magafaha lagu tilmaamayo halkan madaxa dadka ku cashuuray $1,700 oo dadkii maanta Soomaaliland ee diiwaangelinta u soo bixi lahayd ka soo bixi kari lahayn waxaan leenahay xukuumaddu haddii ay arrinka wax ka qaban weydo waxa weeye meeshan xukuumad ma noqonayso taasi waxa isaguna hadalka ka daba qaatay Mujaahid Cali Gurey oo isagu carabka ku dhuftay mudaharaadadii maalmihii ugu dambeysay ka dhacay degmada Saylac iyo sidoo kale baahiyaha kala duwan ee ku baahsan degmada Saylac iyo xaaladda dhakhtarka degmada Saylac oo isagu haatan albaabada ay xiran yihiin magaalada Dacdaale waa gobol bay u tahay magaalo madax degmada magaalo madax bay u tahay waxa nasiib darro ah marka aad eegto wax sii dumaya mooyee wax soo dhismayaa ma jiro Saylac hatta isbitaalkii qorahay ay lahayd wuu xiran yahay oo ma shaqeeyo sababtu shaqeyn waayna waxaan isla malaha kharashka socodsiinta iyadoo customkii loo yacdo ku xigta ayaa la kari waayay inay ku socoto wasiirkii caafimaadka waxa la yiri waxaad ka soo siyaasadaysaa Boohoodle Cali Khaliif oo anigu aan qabo inaanu guluf u baahnay inay gurmad u baahan yahay ayuu Boohoodle oo wata shalay xabadu ka dhacay inay maqlayseen wasiirka caafimaadka waxaan leenahay waa inaad degdeg Saylac u timaada dhakhtarkanina aad u shaqadiisa iyo hawshiisa bilaaba khilaaf badan baa jira halkan oo qolada kalluumaysatada way cabanayaan oo waxay ka cabanayaan in laga xidhay wadadii ay u mari lahaayeen gabi ahaanba badda taa lafteedu ma dhiiri gelinayso shaqo abuurkii iyo xataa nolol maalmeedka soo saaridiisii marka waxaan leenahay waa in dhibaatooyinka Saylac wax badan laga qabtaa labada xisbiye kale mucaarad waxa xusid mudan in imika ay isku haystaan gurigii martida Saylac isku haystaan oo barasaabkii lala soo wada hadlayo midna sheeganayo gudoomiyihii golaha wakiilada baawarkii gudoomiyaha golaha wakiilada kuwa kalena sheeganayaan baawarkii xukuumadda isku soo wada duuba magaalada madaxda gobolka Salal ee degmada Saylac oo iyadu ka hadhay degmooyinka kale ka mid ah Soomaaliland waa Cali Axmed Diiriye Cali Degadalool TV-ga caalamiga Star TV magaalada Saylac